magacaygu waa Cabdixakiim Sharif Dheere waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada ee dhalinyarada Jubbaland madashani waxay ahayd madal uu caawan ugu casuumay casho sharaf ah agaasimaha guud ee wasaaradda Mudane Cabdiraxmaan oo howlo shaqo uga maqnaa state-ka dabcan waxay ahayd iswaraysi maadaama guddidii la magacaabay ay soo mareen shaqooyin soo qabanayeen madal ay isku wareysanayeen guddidii agaasimaha kala warqaadayeen bay ahayd qodobada la isku soo qaaday waxay ahayd waxa la higsanaya in la gaaro qaabka shaqooyinka loo qaban lahaa iyo mar walba sidii guddida iyo wasaaradda isku xirnaan ay shaqada u qaban lahaayeen guddiga howlo badan buu soo qabtay wax badan buu soo diyaariyay habraacyadii haday ahayd waxa weeyaan shaqadii la qaban lahaa constitutionka lagu shaqeyn lahaa shuruucda lagu shaqeyn lahaa arrimihii murashaxiintii arrimaha oo dhan guddiga shaqadiisa dabcan maalmaha soo aadan baa loo soo bandhigi doonaa saxaafadda haddii la haydno doorashada waxay ku xiran tahay waqtigeeda wali islama jaangoyn dabcan wasaaradii iyo inagu inaan ka tashano waxayna mar walba ku xiran tahay fundka loo heli doono iyo logistikada sida lagu helay ku xiran tahay waqtigeeda haddii la haydno